عاو هبين فرحديد ويان ولحي اللباتن جوردي ان بنتلان حلقة يابا لحي اللباتن كب وان جوجاني لحي اللباتن كب حلقة يابا دد ان جوجين إن هالكافرديان ان رنتي وفرحت إن ويل هذا الشيء وكو جار لحي اللباتن وأظن نول ولحي اللباتن جار runtii Puntland rag baa ka shaqeeyay in lix labaatan gaarto aad baan ugu mahadcelinaynaa caawa in si farxad leh meel kasto daafaha adduunka ah loogu dabaaldagayo lix labaatan guuradii Puntland aad baan ugu faraxsanahay runtii intaa kadib madaxweynaha shalay markuu khudbeeyay runtii aad baan ugu farxay Puntland dad gaar ah ma laha wuxuu sheegay inay Soomaaliya oo dhan leedahay shalayto ninkii garowe laga doortay wuxuu ahaa koonfur galbeed sidoo madaxweynaha khudbadiisa ku sheegay yani cid kasto Soomaali ah oo Soomaalinimadeedu ay sax tahay waxay leedahay Puntland marka waa farxad gaar ah iyadana waa farxad gaar ah waxaan rabaa inta kadib inaan u mahadceliyo madaxweyne ku xigeenka ra'iisul baarlamaanka iyo baarlamaanka maxay ahayd Puntland iyo shacabka Puntland oo iyaga oo gacmaha haysta gaarsiiyay meesha ay maanta joogto inta kadib waxaan rabaa sheeko yar inaan idin dhaxgeliyo Soomaalida dhaqankeedu waxa weeyaan laba nin oo walaalo ah ayaa waxay col lahaayeen muddo 15 sano 15 sano col lahaayeen kadib Soomaalidu ma ogaad inay col yihiin labada nin ee walaalaha waana islamana deganaan meel buu degan yahay midkii yaraa gabar uu dhalay baa kii weynaa laga soo doon wuxuu ku hadlu garan way ma dhihi karo walaalkay aniga 15 sano ma wada hadlin ma dhihi karo oo dad baa u fadhiya wuxuu yiri ii soo dhawaada maxay ahayd waxaan aadayaa walaalkay hooshana gaarsiinaya reerkii markuu ku soo baxay yaa ilmihii waxay yiraahdeen aabo nin baa soo socda markaas islaantiisa waxay tiri waa walaalkay imi imaanaya wuxuu yiri waxa soo socda fiiri ma wallahi waa walaalka buu wuu soo baxay wuu soo dhaweeyay ii waran buu yiri wax u jiraan wuxuu yiri walaal waxa gurigayga jooga buu yiri dad aan garanayn waxaan isu qabno laakiin garanayo waxaan isu nahay inaan wada dhalanay bay garanayaan buu yiri laakiin ma garanayaan ani adiga inaan colnahay waxayna rabaan gabadhaadii khadra ahayd bay rabaan runtii labada qof way isku soo ooyeen qalbiga isa saareen way ismarxabayeen abi wuxuu yiri gabadhi wata hadaad ka xaysanayso gurigaaga geynayso nimanka ku daraysid iyo hadaad soo guuraysid oo halkan aan ku wada guurinayn labadii reer arintii farxad bay u noqotay way isku soo guureen way wada degan yihiin gabadhina meeshii baa lagu guuriyay ummadda Soomaaliyeed waa saas oo kale dadku waxay ogyihiin inaan wada dhalan waxba hebel waa Somaliland iyo hebel waa kilka shanaad iyo hebel waa NFD iyo hebel waa Puntland hebel Jubaland ma yaqaanaan waxay yaqaanaan inaan Soomaalinahay oo kaliya bay yaqaanaan aan ilaalino midnimada aan ilaalino walaalnimada aan ilaalino dadnimada inta badan waxaan sheegnaa saddex shay oo aanan ku dhaqmin waxaan dhahnaa midnimo aan raadino nin walbana dantiisu qabsada waxaan dhahnaa aan raadino maxay ahayd dawladnimo waxaa lagu helaa shacabka oo is haysta ayaa dawlad noqda shacabka hadduu is haysanin dawlad meesha kama timaado markaan isku dayno in shacabkeenu uu midoobo aan isku dayno inaan midnimada ilaalino aan isku dayno inaan cadaaladda ilaalino aan isku dayno inaan xushmayno kan weyn oo kan yar oo xushmeeyo oo qof waliba uu noqdo mas'uul ka tirsan mas'uuliyiinta maxay ahayd waayo qof walba waxa saaran xil gabadha Soomaaliyeed wiilka Soomaaliyeed dhammaan waxa saaran mas'uuliyad gaar ah mas'uuliyadda gaarka ah aan nin waliba ha isku day inuu ka soo baxo waqtiga gaaban waa arkaysan odaga laba jeer buu ugu soo noqday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaaliya noolaada insha Allah